يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله إلهي بمهد إسكاله إلهي إن سوى فتشيي إن انكفى إذي سنة دورة قيمة الله سأيان أمهد علينا أولا waxaa inoo bilaabanaysa in sha allahu tacaala dowro culimo waaweyn oo buulo xaawi iyo xamar iyo meelo kale inooga yimid ay noo qabanayaan dowradaasoo ilaa 3 kitaab ka kooban. marka waxaan leenahay culimada waqtiga inoo soo hurtay arrimahoodii oo dhan intay meel soo dhigteen diinta inay faafiyaan ay masaafada intaa leeg marka waxa weeye u soo galeen waanu mahad celinaynaa. waxaana rabbi subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa khayraadka iyo cilmiga ay noo aqrinayaan iyo socodkii iyo soo jeedkii miisaanka xasanaadka inuu rabbi subxaanahu wa tacaala ugu daro. annagana waxaana laga rabaa inaan culimmada aan ka faa'iidaysano, si fiican aan uga faa'iidaysano. dowrooyinka waxyaalo fara badan baa lagu bartaa, waa muddo yaroo kooban oo haddana waxa weeye cilmi badan. hadda 3 kitaab aynu qaadano oon baranno insha allahu cilmi aad iyo aad u badan baynu baranay. marka insha allahu dhammaanteen waxaan isku boorinaynaa inaynu inaguna aan ka faa'iidaysano. cilmiga fadaa'ishiisa waad wada garanaysaan, wada culumaad tihiin. culimmadana waxaan leenahay allah idin barakeeyo. soo dhawaada, magaaladu waa magaaladiinii, ku soo dhawaada dowrada, ku soo dhawaada insha allahu tacaala. dowladu way inoo furan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. majliskan ka mid ah sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam majaalista jannada oo nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum riyaada aljannati fabtacuu. beeraha jannada haddii aad aragtaan cuna oo daaqa ha ka tegine. markii la weydiiyey wamaa riyaadu ljannana wuxuu yidhi xilaqu dikr. waxaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugan sida imaamu muslim uu soo saaray min xadiidi abi hurayra inuu yidhi wama ijtamaca qawmun fii buyuutin min buyuuti illaah yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim alsakiina waxafathum almalaa'ika wagashyathum alraxma wadakarahum allahu fii man cindah. qoomanka ka mida ma jiraan oo guryaha allah ka mida ku kulmay. ila hadday jiraan waxaa ku soo degta sakiina iyo xasilooni xagga alla ah. malaa'igta ayaa hareerayso isku hareeraysa, raalli ay ka tahay majliskaas iyo waxa lagu hayo. raxmadda ilaahay baa daboosha. ilaahayna casa wajalla wuxuu ka xusaayo oo ka ammaanaa cidda agtiisa ahaatay. walaalayaal aad baan ugu mahad celinayaa fadiilat sheekh badri sheekhulbeledka oo runtii juhuuddiisa iyo dadaalkiisa aan wada ognahay. arday badan soo saaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu daro. ilaahayna subxaanahu wa tacaala darajaadkiisa adduuniya aakharaba kor ha u qaado.
innagu waan idiin soo safarnay dhowrkaas cisho ayaan rabnay inaan kala faa'iidaysanno oo duruustii badnayd iyo khayrkii sheekhu uu waday inaan insha Allah intaa ku siyaadino cilmigu walaalayaal su tilmaami mayno fadaaisha uu leeyahay quraanka kariimka iyo sunnada ayaa si aad iyo aad u weyn oo u qiimo badan u faahfaahiyay kelimada oo aan rabay inaan ku soo koobaa waxay tahay cilmigu waa labo cilmi faradul kifaaya oo ummadda haddii qaar ka mid ah ay bartaan inta kalena barayaan inta kale uu ka dhacayo iyo cilmi waxa weeye faradu cayn oo qof walba waajib saaran ah inuu barto waajib oo aan loogu cudur daaraynin ma baranin cilmigaas waxa weeye inaad ilaahay barato tabaaraka wa tacaala macrifatullah ilaahay inaad barato tawxiidkii barato kalimatu laa ilaaha illa allah waxay reebaysa iyo waxay waajibinayso sugayso inaad barato waajibaadkii ku saarnaa sidaad uga imaan lahayd salaadaadii inaad barato cilmi u yeelato zakadii haddii ilaahay maal ku siiyey zakadaadii saad u gudan lahayd waa waajibkii waa arkaanta islaamka xajkii haddaad guursanaysid sidii aad reerkaaga u maamuli lahayd iyo xuquuqdii ku saarnayd awlaadaada inaad khayrka bartid oo diinta bartid oo intaas bartid asaasiyaadka oo tawxiidka ah waa waajib qof walba saaran wey ilaahayna weydiin doona tabaaraka wa tacaala oo qof laga daynaya aanay jirin quu anfusakum wa ahliikum naaran nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ma jiro qof mas-uul ah oo ilaahay mas-uuliyad u dhiibay oo dhimanayo isaga oo ciddii mas-uulka uu ka ahaa khiyaanay ilaa waxa weeye wuxuu dhintaa isaga oo jannada laga xarimay ciyadan billaahi tacaala marka awlaadda adiga aad dhashay haddii aad khayrka bari weydid waa khiyaantay waxaan ku khatimayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiidkii bukhaari من حديث أبي واقد الليثي وحليه مع المالمها كمذا إنك رسولك إلهي نحفر لنا صلى الله عليه وسلم أيا وحي صدح لبوي استاكتوي من نوالاتي وواتلي لبدي تاجلين مد كمذا حلقة بوحو كهلي ميل بنان ماشي بو فريستay intuu soo gudbay kii kalena meeshii gadaashiisa ahayd buu iska fariistay dadkii gadaashooda nabigu markuu darsigii dhameeyay wuxuu yiri ala akhbirukum ani nafari thalatha miyana idin kaga waramaynin saddexdii nin oo iimaanaysay muallimkii ummadu ahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tariiqa iyo qaabka ugu wanaagsan buu dadka wax u bari jiray مواقف تبو كتب بري جرو تصاليالي أمثلة كسين جري واحد هنا غورنا وحير أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله بتكون إلهي بأصد مي خير كي علمي بأصد وادي إلهي بأسجن سودوي ونحرستي سير تنادي سودوي وأما الثاني كيلا بعد فاستحيا وحشوضي حلقة النبي يهيبدي يوكحشوضي دتك إنه دحمر ماشي سوء كفريستي فاستحيا الله منه إلهي ما يستغنى كحشوضي وعذاب كيسئية وحاوي عرضي سإله سبحانه وتعالى وكلا حشوضي وأما الثالث كيس الدحامية فأعرض واتشستي واسكتلي
khayrkii buu ka tegay fa acrada allaahu canhu ilaahay baa ka jeestay asagane oo raxmadiisii iyo tawfiiqdiisii iyo hidaayadiisii kala jeestay marka walaalayaal cilmigu qiimuu leeyahay waxaana ilaahay siiyayoo ku arsuqaa qofkii wadooyinkiisa saxda aqaata adaabtiisii ikhlaaskiisina la yimaada ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu nagu arsuqo cilmi naafica iyo camal saalixa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed بارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني جزاكم الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى كما هتسنة قولا كان يبارك سنة إلهي ما ولنا ودسننا مواسم باجرتا عباداتك إلهي وجدي المر والبإيماني رمضان كوكلا طبعا كبريو ذو الحجة وهو الرئيسة أيام فاضلها جرتا ميلا فاضلها جرا وعبادة الله وقفت الدلال كوجري متكبضا إنه السمايات sidoo kale mararka qaar waxaa dhacda mawaasim cilmiga duruus mukassafa la bixiyo oo fursado yar oo isu yimaada hadda culimmadan socota oo kor nooga timid waxay nala joogaan waa 4 maalmood inta dawladda ay soconaysa ama wax usbuuc ka yar kutubta la akhriyo waa kutub bil iyo ka badan in la akhriyo ay ahayd marka 4 maalmood bil wixii loo akhrin lahaa baa lagu akhrin rabaa macnaheedu waa maxay waxa waaye waa isticdaad iyo kafaafo iyo wax oo waxay u baahan tahay aad isticdaad iyo diyaargarow ugu weyn waxaan ka wadnaa mar walba mana la joogayaan culimada duruuftaana keenaysa ilaahay khayr ha siiyo waxaana noo jooga oo ilaahay dadka ku anfacay miisaan xasanad ha ugu daro sheekh badri marka dadka laakiin hadda dowladan iyo duruustan waa duruus u baahan dadaal aad dheeraad ah haddii marka qofku uu u bartay 1 saac iyo inuu darsi u fadhiyo 3 saac oo xiriir 4 saac oo xiriir oo haddana maaragtay nashaadkii la rabo waxay la afar kadib dabeecada caadi ku soo noqonaysa marka xitaa wadaadka casharka akhrinaya laftirkiisa wuxuu ku talagalayaa inaysan caadi ahayn oo duruus intii ka badan buu akhrinaya marka waxaa weligeedna way jiri jirtay oo culimada islaamka maka isugu imaanayaan ama xajkii 3 maalin 2 maalin bay wada joogaan markaasuu saxiix bukhari akhrinaya habeen say maqku fariisan salaas wax ku aadaya macnaheedu waa maxay fursadan lama helayo hal mar in la kala faa'iideysto marka duruustan waa duruustaas mukassafka ah waxaan rajaynaa biidnaahi tacaala inaan marka aan kala faa'iideysano waxaa marka u baahan quud badan qalbigi oo intii laga rabay shaqadiisa in ka badan loo qabtaa la rabo inuu ka badan sabraa la rabaa waxa ugu muhiimsan waa inaan istishcaarno cibaadada cilmiga inuu cibaado yahay masaajidka la fadhiyo cibaado tahay ilaah ugu dhawaanayno daalkoo dhan marka waxa waaye waa iloobaynaa qalbiga marka quudkiisa inaan intii hore uga badino astaghfirullah intaan jirno inaan ka badino subhanallah inaan ka badino saladaha sunnadaha ka badino maxay yeelay sabar iyo awood intii hore ka badana laga rabo marka kulligeen waxaan u diyaargarownaa biidnaahi tacaala dhowrka maalmood oo ilaah ka barino subxana wa tacaala inuu nagu anfaco waxaan ka baranaynana ilaahay uu xujo nooga dhigo annagana anfaco aakhiri adduunba wax ilaahay aan uga fogaanaysa inuusan nooga dhigin cilmiga laba mid waayo qofku inuu ku faa'iido iyo inuu xujo ku noqdo marka ilaah waxaan ka baranaya inuu nooga dhigo mid kulligeen xujo noo ahoo na anfaca وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الهي الامر هذا سبحانه وتعالى محد وحق يا ابا كليهي ثم وحانون هذا علينا علماء يا ardayda يا dadka reer doolow oo runtikum ku caan baxay wanaag iyo soo dhaweyn iyo cilmiga raadintiisa gaar ahaan
علمدي iyo ardadii iyo dadkii u istaagay dawladan in ay qabsoonto ayadoo waqti kooban maarta oo waqtiga ahaa inay saan u diyaar garoobaan ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadiisa ka damba oo u mahadcelinayna dadaalka iyo juhdiga ay sameeyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka u saara waxaanu awood aan dhahna wajazaakumullahu khayr wa ahsana Allahu ilaykum waxa la yiraahdaa shayga qiimaha uu leeyahay yaa wuxuu ku xiran yahay hadba dhibka uu leeyahay haddii shaygu marka qiimo badan oo aad u macno badan uu leeyahay si fudud laguma gaaro sida daraaddeed cilmigu barashadiisa marka koowaad aad bay kharaar iyo kulayl iyo daal iyo rafaad bay leedahay maxaa loo geliya culayskaas waa wax loo baahan yahay darajada iyo martabada lagu gaarahay ayaa waxay tahay mid aad u sareyso maadaama darajadiisa ay aad u weyn tahay laguma qaadan kara si fudud iyo si qabow iyo maartay xoogaa marna iska imow marna ka tag sharafta lagu gaarahay iyo darajada sare lagu gaaray waxa kamid ah qofka maalinta qiyaamo bini aadanka qaar kamid uu leeyahay ciidiya iga dhiga qaar uu jeclaan lahaa adduunka inuu xoolo ahaado oo sabab bini aadan ba noqonin xilligaas uu xaakim noqon haya oo wax la weydiinaya waa maalinta qiyaamo oo ugu dhibaato badnay wuxuu noqonayaa mid wax la weydiiyo oo hawsha ka waran la yiraahdo yaa iskale dadka cilmiga iskale shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi bal nasafiri marka rusushi iyo ummadihi loo diray la isqabsada ila meesha dhibaato badan baa taal dadka ay dhahan waxba nooma imaanin ma jaa'ana min bashirin wala nadir wax noogu bishaareeyo wax nooga diga wax noo sheega ma naarag oo rasuulkii iska hor imaadan ummadiisii waxa la weydiiyay yaa marqaati galay marka ahlu cilmiga la weydiinaya oo rasuulkan la soo gaarsiiyay ummadan Soomaan waa darajo aad u weyn marka waxa kamid ah yarfa Allahu alladheena aamanu minkum walladheena utul ilma darajat ilaahay kuwa iimaanka laga helay iyo kuwa cilmiga la siiyay darajaad buu kor ugu qaadaya darajaadkaas waxay isugu jiraan darajaadka aakhira ee inaad xataa wax lagu weydiiyo meesha la isku haystay iyo adduunkana inaad nolol koraysa ku noolaato cilmiga inaad u barata inaad meel ku gaarta inaad xoolo ka hesha inaad magac ku yeelata waa xaraam aslan laakiin adiga bara ilaahay darti u bara waxa weeye si mubaasharatan aad u gaaraysaa adoo u qasdinin oo hadafkaada uu yahay ilaahay inaad ku caabudo oo u dhawaado oo tawaaducda hadaa sida cilmiga u barata adduunka ya darajo ku gaaraysaa intaadan aakhira gaarin laakiin in qofka uu u barto cilmiga aad darajo ku gaartay magacaada hal la barta adiga hal laga dambeeya wuxuu noqonayaa ahlu naar buu noqonayaa waad ogtihiin saddexda qof ee naarta gaalada loogu hormarinayo waxa kamid ah nin caalim oo diinta ilaahay bartay oo dadka baray laakiin hadafku u baranaya xuma in la amaana in la buunbuuniyo in la dawa socda in inta yadin markii loo yiri naar buu ku galay laakiin asagoo baranaya haduusan inta u baranin ilaahay inuu ku raali gariyo u barta inta adduunka loo sameeyay inuu heli lahaa tii janna oo aakhirana uu ku darsan lahaa laakiin niyad xumadiisa iyo hadafkiisa aad u gaabnaa oo inta uu arkahay bas u qiimeysnayd oo Allah uu arkay subhanahu wa ta'ala ya abaalkiisa wuxuu noqday inuu naar galo dardaarku markuu wuxuu yahay cilmigu waa qiimo badan yahay wixii qiimo badanna waxa in loo bixiyaa wax qiimo badan wixii qiimo badan waxa loo bixiyaa wax qiimo badan arab maxay dhahay man talaba al-hasana lam yughlihi al-mahru ninki gaba qurxan raadinaya gabadha meherkeeda haday tiraha 100,000 oo garaam iyo haday tiraha cidanada intaasi iyo kama gorgortamay dhahay laakiin gabadh qurxanna waa raadinaya arooskayna waxa raba laba wadaad inay faatixada maraan oo la arag
isma qabanaysay dhaheen soo maaha marka inaad cilmigaas darajadaas gaarta maalinta qiyaama rabbi iyo malaa'igta safkooda aad soo gasha iyo inaadan waqti ku bixinin isma qabanayso marka jazaakumullahu khayr dowladda waa noo bilaabanaysaa reedoolow waxay caan ku yihiin talabul cilmi dad badan baa laga yaabaa in ay doolow ka aaminsan yihiin meel wax kale laakiin qofka imaada yaa ku qancahay simaarteedina meelo badan bay ka soo muuqataa marka jazaakumullahu khayr dadaalka iyo juhdigaad wadaan si laaba sheekh badrina khayr allah siiyo waxaan rajaynaynaa culummadii kasii dhexdeed cilmiga ee Soomaaliya iyo geeska Afrika gaarsiin lahayd inay halkan ka soo baxdaan adinkuna waxaa laga rabaa sida uu sheekha juhdi u bixinayo waqtigiina inaad u bixisaan waxa cilmiga ku xiran waa inaad waqti siiso bari jazaakumullahu khayr wa ahsanallahu ilaykum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh